deeqdan oo ka koobneyd qaybaha kala duwan ee raashinka ayaa ka timid dowladda dalka Cumaan waxaana dadka ku nool magaalada Xeraale soo gaarsiiyay ambassador Abwaan Awliyo iyadoo maanta la guddoonsiiyay in ka badan 150 qoys oo kamid ah dadka danta yar oo laga soo kala xulay xaafadaha kala duwan ee magaalada Xeraale. deeqda raashinka ayaa ka timid dowladda dalka Cumaan ayaa soo gaartay dadka ku nool magaalada Xeraale xilli ay u baahi qabeen helidda raashinkan maadaama lagu guda jiro qaybtii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaana dadka deegaanka ay soo mareen duruufo kala duwan xilliyadii dambe oo saameyn ku yeeshay noloshooda taasoo u dhisi dheereed xiisado u dhaxeeyay qabaa'ilka kala deegaankan oo mararka qaar ka dhacay halkan. qaar ka mid ah dadka guddoomay deeqdan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka mahadceshay deeqdan ciddii soo gaarsiistay iyo dowladda dalka Cumaan oo u soo dhiibtay. waxa weeyaan waxa meeshaan loogu keenay raashin fara badan oo matalaba loogu talagalay 150 qoys oo dan yar ah oo raashinkaasi uu ka kooban yahay sonkor, bariis, bur, timir, saliid, caano booro. waxaana dawladda noo soo dhiibay dowladda Cumaan waxayna noo soo mariyaan ambassador Awliyo. waxaan u mahad celinaynaa dowladda Cumaan oo muslimiinta maaragtay saas noo taageertay. waxaan ka codsanaynaa kuwa kale oo islaamka inay sidaas iyo si ka wanaagsan ay sameeyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshan waxaana lagu qaybiyay raashin deeq ah oo ay soo dhiibtay dowladda Cumaan oo ka kooban 150 qoys. raashinkaas dadkii wax ka qaatay ayaan ka mid ahay anigu oo qaadanayay dad baahan oo waxa la soo xulay degmada ka baahnaaba loo soo xulay loona qaybiyay. waxaana uu ka kooban yahay 7 qaybood: bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo caano iyo baasto. waxaanu leenahay walaalaha iyaga Cumaan oo noo soo dhiibay noona soo marsiiyay ambassador Awliyo oo wakiil uga ah degmada Xeraale. annagana waxaan noo qaybiyay wakiilada degmada iyo maamulka degmada iyo odayaalka baa noo qaybiyay raashinkaas oo u soo xulay dadkii u baahnaa. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba codsanaynaa intaas in ka badan muslimiinta walaalaha ah inayna soo gaarsiiyaan. Cumaanta intaan soo dhiibtay iyo kuwa kale ka badanba inayna soo gaarsiiyaan ayaan walaalehen ka codsanaynaa. waana u mahad celinaynaa. ilaahay baana mahadda iska leh. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. annagoo muslimiina oo Ramadaan sooman isugu kaaya keena meesha walaaleheenna soo xuseen annagoo sooman oo ideen dadkaasi ha ku afuraan cuntadaas. ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo. Bashiir Maxamuud Cabdille oo kamid ah mas'uuliyiinta loo wakiishay bixinta deeqdan ayaa sheegay in dadka u baahan caawinta ay ku badan yihiin deegaanka waxaana uu codsaday in ciddii awoodda ay soo gacan siiso isagoo oo sheegay in ay ka mahad celinayaan deeqdan soo gaartay. halkan waxaan isugu nimid maantay deeq raashin ah oo ka kooban sonkor, bariis, baasto, bur, timir, caano booro iyo saliid oo ay ugu deeqday degmada Xeraale dowladda Cumaan. aad baan uga mahad celinaynaa. waxayna noo soo marsiisay ambassador Awliyo oo deegaankan ka soo jeeda iyo degmadan. aad baan u soo dhawaynaynaa. dadka kale oo islaamka oo deeqda bixiyana waxaan ka codsanaynaa sidaas oo kale inay ku daydaan. ayakana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa arrinta ay noo sameeyeen. Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha iyo TV-ga qaranka magaalada Xeraale.